أيوة daawooyinkaygi iibiya oo raadiya qof xanuunsan baan ahay shaqo ma qaban karo ummadda Soomaaliyeed baaqdhar iyo baaqa waxaan u dirayaa waan walaashiisa Axmed Muuse Sagalaarsa walaalayaal oo aniga cidaan idinka hayn milihi aniga walaalo ilmo dhalan aabihii iyo hooyadayna way dhinteen السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن شافعي كورتي سيدو كله ولكن ما هو يارك سيدو كله channel كداونيسان وشافعي كورتي فضلا دايتا مركو وريسي سبسكرايبك iyo like تمانا للاوين maanta waxaan ha iska ilaawa هذا وين kale la maanta wuu jeedin ninka odayga inta video u galay ninka odayga aad dhihin YouTube kaada ma qabal ka hor ku taasoo TikTok duusa faarweel ugu qabatani baalka mar igu dambeysay horta koodhe laakiin asxaabtayda mar walba halkan jooga inaan xasuusiyo mar oo aan dhaho mar ay isku kiin dambeysay ana asxaabtayda meesha wadgiimi oo sii fadhiya way nixisay insha Allah asxaabtayda kursana waa kuwa yacyaca ma oo Facebook asxaabta YouTube ka long time marta nibaa xasuusiyo waxaasi anyway halka markay ay marayso waxaan rabnaa maanta inaan waxa halkan ka hadalno muuqaal dhamaanteennaba mas'uuliyad naga saaran tahay sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ah ula hadlo fanaaniinta Soomaaliyeed meel walba jooga dalay dabadba ay ka saaran tahay mas'uuliyad maanta waxa halkan aan muuqaal ka wadaa waxa waaye walaashin Sagal Artist kulay mar rabo inaan kaga hor dhaco laakiin muuqaalka ayaa daawad doontiin kadibna wixii information ayaan isii doonaa insha Allah gadaal baa ka sii doonaa horta codsiga ay soo gudbisay fanaaniinta Soomaaliyeed iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed u dirtay sax aan sala daawan iyo waxa leedahay inuu bilaabo fanaanadiini baan ahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay caawiyaan caawimo kolay inta wax garan karta ama wax fahmi karta oo aqliga u saaxiibka markaan ku leeyahay caawimo walaanu sokorta saddexdii waqti waan istiraaha cirbada sokorta isku dureeyay Ilaahay baa og cirbadina gatama awooda ka yare cirbada aad bay qaali u tahay walaal dhiigkarkaaba kiniinigiisu jaban yahay inuu Afrika jooga haddana qurba nacsi weyn meeshan joogo waa Kenya saddex jeer afar jeer saddex bilood afar bilood markaa isticmaasho mashiintaas weyn la bedelaa maalintii saddex jeer baan anigu isturayaa baashi dhiigga lagu soo qaadayo marmar waxay ka dhamaanaysa cirbadii ilaa iyo wallahi shalay ismaan mudin indhahayga meesha ka muuqdaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qiyaasi karo saaka gabar waxay iga intay 2 xabo iga dhamaantay daawadii ma anigiiba daawooyinkaygi iibiya oo raadiya qof xanuunsan baan ahay shaqo ma qaban karo ummadda Soomaaliyeed baaqdhar iyo baaqa waxaan u dirayaa waan walaashiisa Axmed Muuse Sagalaarsa walaalayaal oo aniga cidaan idinka hayn milihi aniga walaalo ilmo dhalan aabihii iyo hooyadayna way dhinteen hooyo miskiin oo single mother oo Nairobi ku nool ayaan ahay horta yani kelmadda ugu dambeysay ay ka dhawaajisay horta waa maqasheen oo kelmadda maanta la wada taabatay qofku markuu waalidaan yahana waa dareemi karnaa xaaladda uu leeyahay kulay qof kasta Soomaaliyan uu arkay halka markay marayso walaasheen kulay oo u jeedin maanta waxaan uga baahan tahay gacan karaba ama gacan lixad leh maanta waxay u baahan tahay waa caawinaad wax kala tamaahan kaliya inaan ka tacaalno xanuunkeeda guud iyo maanta dhibaatooyinka guud haysto walaasheen sidoo kale anaguna waan u duceynaynaa dhamaanteena secondly waxaan rabaa fanaaniinta Soomaaliyeed inaan baaq u diro kaas oo ahaa hadda ka hor sidii aad ugu kacdeen ninka la dhaho ila yare oo aad xanuunkiisii ugu kacdeen oo aad loo soo daaweeyay masha Allah ayaan maanta waxaan jeclaan lahaa walaasheen in lagu kaco Sagal waxay ka mid tahay fanaaniinta hore oo aad taageeri jiray laakiin bariyada dambe ay ku habsatay musiibadan waxa sokorta iyo xanuunkan dhiigkarka waxyaalaha haysta marka waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed oo ay joogaan xanuunta marka ay dhahday wax walaala kale oo joog ma laha iyo wax waalida cid kaliya maanta ma qanaa Soomaali weyn sax meel walba dunida ka joogto marka qof markuu xalkaas taagan yahay aad iyo aad wax ma badan tahay waan emotional wallahi maadaama walaasheena garab inaga dhigatay qof walbo lambarka xataa video korkiisa ku qoran yahay meesha kala xiriiri karta daacabada dib soo kala waxaan information ka meesha saaran yahay saxa waxa uu kala u mahad celinayaa walaalkay marna sidigay oo waraysi
kooban ka soo qaaday title-ka ayuuna ku qoran yahay lambarkeeda halkaas ayaad ka caawin doontaan kaba yare ayaana arrintan ka shaqeeyay oo bulshada usoo gudbiyeen dhammaantiin masha Allah anigana isoo share gareeyay inaan ka hadlana ay qasab ugu noqotay qof walba Soomaaliya mas'uuliyad baa ka saaran waxa frijeedo haddaad awoodin inaadan caawin awoodid waa share gareen iyo duco insha Allah Soomaali weyn dhammaanteen waxaan rajeynaynaa inaan u kici doono oo caawin doono alaashayna Sagal Maxamed Muuse Sagal artist masha Allah fariinta kala rabo inaan ku sii darsado halkan waxay tahay in walaashayna hadda waxay ka sheeganaysaa cudur la yiraahdo sokorta marka Soomaalidana waa ognahay wax aad ka u isticmaalaan sokorta wallahi aniga ku horta eego haddana macnaha sokorta markii ay cunaan wax tareena iyo wax dhiidka keenaya ay sameeyeen saas awgeed qof walba uu leeyahay marka sokorta lagu dhaco ninka hadda garaf liya ugu darbo wallahi hadda wax walba sokorta dhiga macoo waayo faxbaa noqdaaba marka sokortaas badan oo laakiin dhibaatooyin ka dambayso ayaa ka daran marka halka arjaydan qof kasto sideeda ah oo sokorta u isticmaalaan inuu iska yareeyo sida kan walaashayna caafimaad taama urjeenina inuu wada kici doontina rajeynayna ugu dambeyn waxaan leenahay maantay muuqaalkaas ayaan rabay inaan ka hadlo oo aad ii dareen geliya baryahan waxa waaye ku tala jiraan aan ka hadlo laakiin waqtigu ii saamixi waaye sidoo kale waxaan la hadlayaa asxaabta meesha ku jirto dhammaantiinaba dee raalli ahaada war ya waa intaas raalli meel loo laakiin wuxuu ku fiican yahay dhankan hadduu ka jifto dhankan kale oo linkeeda TikTok waa la socotay dhankii fanki xoog saaray dhankii fankana balaaya lug la ii geliya aan kabkabtayda ahayn waxaan saan ku mashquulay marka saacad qaligaan odigana waa su'aal insha Allah sax marka waxaan leenahay dhammaantiinaba waxaan leenahay inta muuqaalkan iyo muuqaal xiga ku kulmayno waxaan ka sidaasiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh